wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo wada la dagaalanka iyo dabargoynta koronkorta ayaxa ku habsaday qaar ka mid ah deegaanada gobolada dalka Soomaaliland ayaa waxa magaalada Boorama soo gaadhay gaadiid loogu talagalay in ay buufiyaan koronkortaasi ka dilaacday deegaanada gobolada Awdal iyo Salal si ay u badbaadiyaan saraca beeraha ee uu saameeyay ayaxaasi. Gaadiidkani oo saaka ka anbabaxay xarunta wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Awdal ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi, agaasimaha waaxda ayaxa wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Cilmi, isuduwaha wasaaraddaasi ee gobolkani Awdal Nimca Maxamed Aadan. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana ka warramay gaadiidkani iyo goobaha ay ka hawlgali doonaan isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolkani Awdal Nimca Maxamed Aadan. maanta ay tahay axad 14 bishii 6 2020 waxa wasaaradda horumarinta beeraha ka anbixi doona tiimkii ka shaqeynayay kana howlanaa la dagaalanka ayaxa. tiimkaasi hore uga soo shaqeynayay muddadii ay xujiray gobolka ayna ahayn shaqadii ugu horeysay maanta gobolka ka qabtaan. tiimkaasi wuxuu ka shaqeyn doonaa degmada Xeego iyo degmada Baki. maanta waxa lagu horeyn doonaa degmada Xeego oo laga bilaabi doono Cadaad. waxaan xagga marka hore uga mahad celinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumiseed agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha iyaga oo mas'uuliyadeedana lahaa baabuurtan maanta gobolka ka shaqo gali doonta iyo hay'adda FAO oo mar walba iyadu kalana shaqeynaysa wasaaradda beeraha haday wax soo saarka tahay iyo haday tahay la dagaalanka ayaxa. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina sheegay in ay ka soo jawaabeen baaqi bulshadu u soo direysay agaasimaha waaxda ayaxa ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Cilmi. maanta waxaan ugu nimidnay gobolkan Awdal inaan ayaxa ku dhex jira beerta ama dalga ku dhex jira inaan soo buufino wada ogtiin baryahan beerleydu baaqay noo soo dirayeen wuxuu ahaa in dalagii ayaxii khasaaro badan u geystay. taasi iyadoo hadaba wasaaraddu ka jawaabaysa maanta waxay gobolkan Awdal soo dirtay tiimkii la dagaalanka ayaxa iyadoo oo targetkaygu ama aan priority-ga siinayno meelaha dalaga ayaxa ku fadhiyo. inta kadib gudoomiyaha degmada Xeego Khadar oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay gurmadkani wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland waxana uu yiri isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Awdal Nimca Tube gudoomiye xigeenka gobolka iyo tiimka ka socda ee uu hogaaminayo moogtahay wasaaradda beeraha ee heer qaran una socda la dagaalankii ayaxa. waxaan leeyahay baaqayaga inta badan aan soo jeedinayneed ka soo jawaabteen aad iyo aad baad ugu mahadsantiin. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta iyo bulshada ku dhaqan deegaanadan ay ka hawlgali doonaan gaadiidkani loogu talagalay dabargoynta ayaxa in ay la shaqeeyaan. maanta farxad bay noo tahay mar haddii loo shaqeynayo bulshadii oo 6 gaari la soo diray waana garab taaganahay degmooyinka lagu socdo maayirka Baki u horeeyeen waxaan farayaa inay la shaqeeyaan tiimkaas sidii loo gargaari lahaa ee loo garab gali lahaa ee loo wada shaqeyn lahaa. tiimkan waxaan faraynaa waxaad u adeegayseen waa bulshadiina inaad si hagar la'aan ugu adeegtaan. qofba intuu qabto umbu fi aakhiraba helaa. marka inaad dadkiina u dadaashaan waana mas'uuliyadiina saaran. degmooyinka la tagayna mar labaad waxaan ku celinayaa inay la shaqeeyaan. وعبد السلام ساها وربعين تقرن كالصوماليلان مقالة بورما.